السلام عليكم أصحابتا ku xiran jeel xirfad ku soo dhawaada muuqaal cusub kaasoo aan ku soo gudbin doono exchange-yada ugu fiican ee crypto lacag loogu shubto exchange-yada ugu fiican ee crypto-da sida lacag loogu shubto iyo sida lacag loogala baxo kuwaasoo aan halkan ku soo gudbin doono haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe noo saar channel-ka haddii aad hore noola joogteen muuqaalkan like saar si uu gaaro dad badan haddaba haddii aan ku bilaabo muuqaalkeenan oo kooban oo ka hadlaya exchange-yada ugu fiican iyo kuwa aan anigu samaystay ee aan lacagna ku shubto meelo badanna aan lacag kaga soo saarto marka aan u baahdo marka hadda waxaan ku bilaabi doonaa Binance oo kaalkan ugu horeysa marka Binance aniga way samaysan tahay Binance waa mid ugu fiican ee hadda dadku wada yaqaanaan waxaanad ku samaysan kartaa oo verification ay kaaga baahan tahay kaliya hal passport inaad leedahay iyadu passport ay u baahan tahay KuCoin ayaa kamid ah talabaad aniga oo iga samaysan wadan kale ayaa la iga soo sameeyay waayo location-ka Soomaaliya kuma shaqeyso KuCoin markaas awgeed wadan kale ayaa la iga soo sameeyay waxa ku xiga Bybit oo aan ku sheegi doono sida loo samaysto kaliya isagu wuxuu kaaga baahan yahay saddex inaad haysato ID card dhalasho ah ID card dhalasho markaan ku leeyahay ma ku jaamacadeed ee waa ID card dhalasho passport dhalasho iyo liisan baabuur ayaa lagaaga baahan yahay tan sidaas oo select ayaa lagaaga baahan yahay marka hadda muuqaalkan waxa kugu tusi doonaa Bybit sida loo samaysto iyo Legacy sida loo samaysto iyo Oki sida loo samaysto hadda labadan ayaan ku horeyn doonaa kana sida aan labadan u sameeyay ayaad u samaysan doontaa marka inta aan bilaabin waxaan doonayaa inaan Binance waxoogaa ka tuso Binance ayaan geli doonaa meeshayda Binance-tayda hadda Binance-taydu waa taas account-kayga markaan soo galo Binance ayuu igu furmayaa Binance waa tan marxagan waxa la yiraahdaa waa wallet-kii waa halkii lacagaha la dhiganay halkan waa halkii trade-ka laga sameeyay marka aad trade sameynayso waa marka aad lacag coin aad iibsanayso iyo marka aad iska iibsanayso halkan waa market-kii suuqa ayaad ka eegaysaa kuwa marka ugu horeeya hadda Bitcoin ayaa ugu horeysa ETH ayaa ku xigta BNB ayaa ku xigta markaasna ma ka horeeyaan laakiin waxa jira meelo laga ogaado sida ay u kala horeeyaan marka home-kana waa home-kii card halkan waa deposit marka aad doonayso inaad lacag soo dhigato halkan ayaa taabanaysaa lacagta aad soo dhiganaysaa waa crypto haddii aad doonayso lacag coin inaad iibsato halkan ayaad ka iibsanaysaa marka crypto-da ayaad gelaysaa marka aad crypto-da gasho account-ka magacyo ay kala leeyihiin crypto-da imka TRX oo kale ayaa ugu horeysa marka halkan ayaad ku soo dhufanaysaa marka halkan ku dhufato waxaad tagaysaa Tron ayaad tagaysaa waka TRX-kan ayaad soo qaadanaysaa marka aad soo qaadato marka TRX-kan aad soo qaadato waxaad tagaysaa toos waxaad tagaysaa Ether waa application-ka aan hore idinku sharaxay marka phone-kiisa ayaad soo bixin doonaa Ether-ka phone-kiisa halkan ayaan tagayaa setting-ka marka aan setting-ka tago Ether waa inay ku samaysan tahay haddii aanad hore u daawan muuqaalkan ayaan ku sharaxay marka halkan ayaan tagayaa marka halkan ayaad gelinaysaa Binance-taada koorkeeda halkan ayaad gelinaysaa markaad koorkii geliso halkan ayaad save leedahay kadib hadda anigu igu jirtaa marka qaybtan kale bedelashada ayaan tagayaa marka halkan ayaan Binance ka dhigayaa Binance marka aan ka dhigo waatan Binance ayaan ka dhigayaa hadii aan rabo marka saadkayga lacagta ku jirta saadka ayaan sareysiinayaa halkan Binance ka dhig halkanna saad ka dhig waka marka lacagta aan doonayo in Binance la igu shubo halkan ayaan ka dhigayaa wixii la igu jira marka lacagta ugu yar ee aad ku soo shuban karto Binance waa $15 marka lacag $10 iyo waxaas waad ku shuban kartaa laakiin $1 iyo waxa lagu shubo $15 ayaad ku soo shubanaysaa marka confirm ayaad leedahay kadib wuxuu ku leeyahay automatic ayaan ugu shubanayaa next marka ay raahdo wuxuu leeyahay $15 ayaa lagu shubayaa Binance ma rabtaa inaad Binance $15 ku shubato marka pin number-kayga sim card-ka ayaan gelinayaa marka pin-kii aan geliyo saan ayaan leeyahay mar rabaa inaan Binance lacag ku shubto waayo lacag ugama baahni adiga saas ayaad u samaysanaysaa marka hadaba Binance doonayso markii hore Binance ayaa hoosisay marka Binance ayaa lagu shubay marka saadka ayaa lagaga shubay marka dahabka ayaa lagaga shubay marka saas ayaad u isticmaalaysaa marka hadda Binance ayaa sareysiinaysaa Binance oo kaliya maaha wallet kasta marka Binance oo kaliya maaha koodkan waxaad ka dhigan kartaa wallet kasta koodkan halkan aan geliyay waxaad ka dhigan kartaa wallet kasta ayaad ka dhigan kartaa halkan ayaan gelayaa kan koodkan aad arkaysaan ama qoraalkan aad arkaysaan dhammaan wallet-yadan kale ee aan ku sharaxi doono
koodkooda ayaad soo qaadanaysaa marka xaggan ayaad gashanaysaa marka hadda markaad Binance doonayso lacag inaad ka saarato iyada halkan ayaad u sareysiinaysaa marka Binance sareysiisid saad ayaa lagu soo dhigayaa marka lacagta Binance ayaad ka soo dhigaysaa qaabka Binance lacag loogala baxo waxaan ka dhigi doonaa muuqaalka ku xiga iyo qaabka loo iibsado kiribtada la maalgashado muuqaalka ku xiga ayaan ka dhigi doonaa laakiin waa inaad fahanto qaabka Binance lacag loogu shubto kadib hadhow si aad pocket option-kaaga lacag ugu shubato inaad aad u fahanto Ether qaabka ay u shaqeyso Etherna haddii aad doonaysaan muuqaal ayaan ka soo diyaarin doonaa qaab faahfaahsan anigoo mar Binance lacag kaga shubanaya marna Binance lacag kaga soo saaranaya iyadana waan ku tusi doonaa markaas waa deposit marka aad lacag soo dhiganayso marka hadda waxaan ku tusi doonaa marka Binance wata KuCoin ayaan ku tusi doonaa KuCoin oo aan aad u isticmaalay inta badan haddana ay lacag igu jirto KuCoin-teeda markaan soo galo halkan iyadana waa waaladkii waa asset waa waalad un bay u taagan tahay hadda lacagta igu jirta 398 marka iyada halkan ayaad marka lacag soo dhiganaysana waa deposit marka lacag la baxaysana waa tan marka lacag la baxay imika withdraw ayaan leeyahay marka withdraw iraahdo lacagta aan la baxay akoonka ay ku jirtay ayaan tagayaa marka hadda lacag halkan $1 ayaa igu jirta Sweetcoin waxa igu jirta $1 isaga ayaa ku soo dhigaya XRP waxa igu jirta $20 TRX waxa igu jirta 373 lacagtii uu kala qaybiyay marka TRX ayaan tagayaa marka waxa la iga rabaa kood kan yar ayaa la iga rabaa marka maxaan sameynayaa waxaan tagayaa Ether ayaan tagayaa Ether ayaan leeyahay lacag ayaan la baxayaa waxaan kala baxayaa Binance waxaan rabaa saad lacagtan la baxaya waa $10 halkan ayaan ku qorayaa waxaan leeyahay $15 isaar waxa igu saarayaan $13 iyo 77 senti kadib waxaan leeyahay kadib saan marka iraahdo lacagta confirm aan iraahdo lacagtaas confirm marka iraahdo waxay siinayaan koodkan marka ay siiyaan koodkan ayaan copy leeyahay kadib koodkan markaan copy iraahdo waxaan tagayaa halkan ayaan basti ku leeyahay lacagtaan la soo baxayay ayaan xaggan ku gelinayaa marka lacagtii all dhamaan waa wada geliyay laakiin lacagta TRX ka ayaan soo qiimeynaya TRX qiimsi ay taagan tahay $15 Google-ha ayaan ku qorayaa Google-ha markaan ku qoro kadib ayaan soo qiimeeyo ayaan $15 la baxaya TRX wala soo qiimeeyaa qaabka loo qiimeeyo waa ku tusay waatan Google-ha ayaad ku qoraysaa TRX to USDT halka TRX wuxuu u taagan yahay 14 senti marka $15 halkan dollarka ayaad hoosaysiinaysaa marka $15 waxay u taagan tahay 109 TRX ay u taagan tahay ama Tron ayaa la yiraahdaa marka labadaba magaca way leedahay TRX marka hadda waxaan gelin doonaa 109.62 ayaan gelinayaa marka 109.62 intaas ayaan la baxayaa waxay iga goosanayaan fee ah 1.730 imisa ayay ka tahay TRX lacagta laga goosanay halkan ayaan ka eegayaa 1.730 waxay iga goosanayaan 19 senti oo dollar marka loo bedelo marka TRX ahaan ay iga goosanayaan waa intaas marka withdraw ayaan leeyahay waxaan gelinayaa Gmail koodkayga aan ku samaystay Authenticator-kii kadib saas ayaan win ula baxayaa kadibna lacagtaas waxay soo diraysaa Ether ayaa saay ku soo diraysaa aad ay u fududahay qof kastana waa fahmi karaa marka waxaan ka socon doonaa marka qaybtan ayaan ka socon doonaa hadda marka KuCoin-ta hadda san ayaa iyada aan u isticmaalaa badanka marketkii waa kan waa isku wada mid dhamaan marketkan way wada leeyihiin marka hadda waxaan duubi doonaa oo aan ku xigsiin doonaa Bybit sida loo samaysto marka muuqaalkan hadda aad dhamaysto Bybit marka sida loo samaysto waxaan ku xigsiin doonaa Megas sida loo samaysto labada application marka aan sameeyo OKX-ku feediisa ayaa badan kuguma taliyaan inaad samaysato laakiin OKX-ku feedan laga jaray marka lacag la baxayso ayaa aad u badan labadan ayaa ka dhaqso badan oo lacag yar bay ka goosanayaan Binance-na waa kugula talinayaa inaad samaysato Binance waa mid aad ku halayn karto
waana mid aad maalgashi ka samayn karto. Muuqaalkan waxaan ku xisiin doonaa application cusub oo cryptada laga trade gareeyo kaasoo isna aan muuqaalkiisa idinku xisiin doono oo noqon doona mid aad lacag fiican ka samaysaan marka aad fahantaan cryptada. Laakiin waxaad igula talin doonaa inuu qof walba barto istaraatiijiyad trade ah. Dhammaan waxaan soo geliyay muuqaalkii ka horeeyay sidee forex loo bilaabo. qof bilaabay ma jiro oo inta uu casharadii ka daba tagay daawaday, laakiin xogta inta uu helay ayaa uu iska dhaafay isagoo raadinaya inuu maalin kasta signal helo. Hadda muuqaalkan ayaan ku xigsiin doonaa Bybit ee la soco. qaybta labaadna waxaan ka dhigi doonaa Megasi ka August-kaasna adiga ayaa samaysan doona oo aan kaaga tagay. Marka labadan ayaan anigu hadda samayn doonaa sida aan sameeyo iyo tallaabada aan qaado ayaad iga daba qaadi doontaa. Bybit ayaan ka horeyn doonaa. haddaba inaan samaysano Bybit oo ah exchange waxaan u gelaynaa Bybit account-kan. markaan galno waan buuxin doonaa insha Allah ee la soco shuruudaha sida loo buuxinayo. marka soo gasho shaashadu san ugu furanto wuxuu ku leeyahay maadaama account ayaad ka furanaysaa adoo waxaas oo kale iskuma sii mashquulnaysid. marka sign up ayaad leedahay haddii aad hore u lahaydna login ayaad leedahay. labadaba halkan ayay ku wada jiraan button-ka yar markaad taabato sign up baad leedahay. kadib waxaad ku furaysaa Gmail-ka aad ku furaysaa ahaado Gmail aad garanayso password-ka oo security-giisa wax walba ay ku saxiin waayo account-kan waxaa soo dhiganaysaa lacag. marka hadda waxaan ku dhufanayaa qaybta Gmail-kayga ayaan tagayaa. kadib waxaan ku furi doonaa Gmail aan leeyahay waan qarin doonaa Gmail-ka. marka hadda Gmail-kan ayaan ku furay kadib intaa waa ka qariyay oo ay Gmail badan ayaa soo baxay oo moolkii igu jiray. kadib saas ayaan u qarsaday. kadib marka uu soo furmo wuxuu ku weydiinayaa verification code-kan yar. kadib verification code-ka yar ayaad ka jawaabaysaa. marmarka qaar waad ka jawaabi kartaa marna waa isdhaafinaya. marka halkan waxaa soo baxay verification ku samayso account kasta oo exchange adigoon verification ku samaysan haddaad lacag iska soo dhigto lacagtaas lama bixi kartid. shuruudiisa ayaa ah inaad lacagta aad soo dhigatay aanad la bixi karin. marka shuruudaas haddii aad ka faa'iideyso aad maqlayso hadda oo kuugu celinayaa mar kale verification now haddaan account verification ku hayn lacag iska soo dhigin lacagna kale ma bixi kartid. haddii lacag aad soo dhigato account-kii on verification ku hay sida awgeed lacag lama bixi kartid. marka aan ka socono waxaan gelinaa verification now marka aan tagno waka deposit lacag baad soo dhigan kartaa, trading baad ka samayn kartaa. waxaan wuxuu ku sheegayaa isagu wax ku qabanayo BLB trade ayaa kula bixi kartaa lacag baad dhigan kartaa oo lacagtaas ku shaqayn kartaa. marka verification now ayaan hadana ku sii dhufanaynaa. marka hore ayaa Soomaaliya ayaad halkan dooranaysaa location-ka ayaad Soomaaliya ka dooranaysaa. kadib passport haddii aad haysato passport-ka ayaad tick saaraysaa. haddii ay ID card haysatana ID card-ka ayaad tick saaraysaa. haddaad driver license haysatana driver license-ka aad tick saaraysaa. haddii aad haysato marka passport-kaas iyo shuruudahaas aad dhamaystirato document-kaas document-ku waa afarta document-kaas ayaa laga rabaa. kadib marka aad buuxiso confirm anigu hadda waxaan haystaa verificate now aan ku celiyo ID card ayaan haystaa. ID card-kii ayaan doortay kadib confirm ayaan si leeyahay. wuxuu leeyahay ID card-ka sawir. marka ID card-ka kamarad ayaad ku sawiraysaa waa inaad ID card-ki soo qaadato. kaarkiisaan ID card-ka waa iga qarin doonaa laakiin dhinacyadiisa yar ayaan iga tusi doonaa. kaarkii oo dhulka yaala ayaan iska sawirtay. marka document-kiisaas ayaan ku xareeyay. selfie iska qaad wajiga ku toosi. selfie-giina oo taa laga qaaday verification-kiisaas ayuu igu dhamaystiri doonaa 1 hour kadib ayaanu dhamaystiri doonaa. wajigiina waa laga qaaday. marka phone-ka saas ay buuxinaysaa. kadib markaas waxaan eegi doonaa halka minute kadib 1 hour saac kadib ayaan eegi doonaa review ayaa lagu eegayaa xogtii. kadib saas ayuu noogu dhan yahay.
waxaan eegi doonaa in verification-ka inoogu dhacay. Marka verification-ka aad doonayso inaad eegto, marka hore qaybtan ayaan ku jirnay, dhammaan qaybahana waan ku sharxi doonaa, laakiin waxaan tegaynaa halkan profile-keena. Marka profile-keena ku dhufano waxaad arkaysaa verification now inay ku verification uu ku yahay. Marka maxaa laga rabaa inaad security-ga adkaysato oo aad ku xidhato Google Authenticator-kii aad ku xidhato, kadib security ayaan tegi doonaa. waa kan halkan ayaad tigsaaraysaa. Marka Google Authenticator-kana san ayaad u furanaysaa, kadib markaad furato wuxuu ku leeyahay Gmail-ka aad ku sameynay oo ka sare ah. Halkan code baa lagu dirayaa Gmail-ka. Marka Gmail-ka ayaan geli doonaa, Gmail-ka ayaan ku soo qoranaa code-kaas. Gmail-ka waa kaas code-kii markaan soo qoranay, Gmail-kiisa ayaa geliyay. Marka aan confirm ayaad si leedahay. markaad confirm tiraahdo halkan ayaad furaysaa. Marka Authenticator-ka waan ka qarin doonaa, waayo code-ka sare ee madow ayaan ka qarinayaa. marka code-kan yar ayaan copy-sanayaa, waayo code-kan haddii aad hesho adiga laftaada ayaa qaadan doona oo meel kale ku soo samaysan doona. Marka xogtigaada ilaasho, markasta code-kana ilaali. Marka code-ka waa la ilaalinaya. Marka Authenticator-ka ayaan toos tagayaa. Authenticator-kayga ayaan markaan tago, Authenticator-kayga waa ka xagan igu jira. Marka Authenticator-ka ayaan ku dhufanayaa. marka halkan ayaan furayaa Google Authenticator-ka. waxaad kala soo degaysaa Play Store-ka iyo App Store-ka. marka xagan ayaan ku darayaa mid cusub. marka entry ayaan leeyahay. iminka anigoo duubay haddaad doonto muuqaalkan madow ayaa kaa saarmaya, waayo shirkaddu ma ogola. marka halkan ayaan ku qorayaa Bybit kolba kii aan isticmaalayo. marka code-keeda aan sitay ayaan halkan copy ku leeyahay, kadib sidaas ayaan add ku silayaa. markaan add ku siraado waad arkaysaa Bybit-kii iminka sidaas ayuu igu Authenticator-kii igu ogolaaday. marka halkan ayaan ku soo noqonayaa, xagga next ayaan leeyahay. markaan next iraado waxaan sitay code-kii ayaan xagin gelin doonaa. intaa yar ayaa marka aad samayso wuxuu yiri maaha mid sax ah buu yiri. marka waan ku noqon doonaa, ku cusub ayaan soo qaadan doonaa. kadib ka cusub markaan soo qaato, kii cusub isaga ayaa hore ka geliyay. oo arkaysaan marka halkii aan ku soo noqo Google Authenticator-kii saas ayuu igu aqbalay oo igu furan yahay. marka haddii aan hadda security-ga ku soo noqdo, security-ga haddii aan ku soo noqdo aan eego oo kaas Google Authenticator-kayga la'aantii lacag lama bixi karo. markaan lacag la baxay haddii qof kale is raado lacag kala bax oo ka xad, Google Authenticator-ka ayaa lagu soo weydiinaya. ama qof scam ah oo ama qof scam ah oo raba inuu akoonkaaga jabsado, Google Authenticator-kan ayaa ka istaajinaya. markasta oo lacag la baxaysa adigana wuu ku weydiinaya, waayo qofkii lahaa ayaa tahay. marka hadda akoonkii Bybit aan samaystay saas ayuu igu dhan yahay. dhammaan shuruudihii waan dhameeyay, shuruudaha yar ee dhibta yar leh. kolba kii kuu dhib yar ayaad samaysan doontaa adigu. marka kii kuu furma, marka hadda halkan asset ayaad ku dhufanaysaa. marka lacag soo dhiganayso waxaad leedahay deposit. waxaad dooranaysaa halkan ugu hooseysa deposit crypto. lacagtu waa crypto ayaad leedahay. haddii aad lacag soo diranayso Solana aad soo dhiganayso, haddii aad BTC soo dhiganayso, haddaad TRX soo dhiganayso, lacagta aan isticmaalana oo TRX. marka lacagta saas ayaad u soo dooranaysaa. kadib marka lacagta soo doorato code-ka yar ayaad qaadanaysaa. code-ka yar ba copy leedahay markasta oo aad lacag soo dhiganayso iyo markasta oo aad lacag la baxaysana qaybtan ayaad tegaysaa withdraw. kadib lacagta aad la baxaysay ayaad gelinaysaa code-keedii. marka lacagta aad la baxaysay ayaad halkan ku qori, halkan kuu soo dhigmaysa. kadib markay lacag kugu jirto halkan ayaad ka taabanaysaa tig, aad ka oranaysaa dhammaan lacagta halkii kugu jirtay. hadda hiding bay ahayd, marka aan ka qaaday dhammaan halkan ayay ka soo baxayaan akoonnadii. marka aad baaraysaa akoonka lacagta ugu jirtan xagga sare ayaad ka baaraysaa. TRX soo kale lacag ugu jirta baad leedahay. lacagtii marka aad halkii kula baxaysay address-keedii ayaad halkan gelinaysaa. halkan waxaad gelinaysaa magaca lacagta aad la baxaysay, kadibna withdraw. saas ay lacagta kuugu baxaysaa. wuxuu ku weydiinayaa password-kii, wuxuu ku weydiinayaa code-kii Gmail-ka ayaa code ugu diraya. wuxuu haddana ku weydiinayaa code-kii Authenticator-ka. kadib lacagtii saas ayaad ula baxaysaa. siin doonaa Megas Sigas oo isaguna ah exchange aad lacag dhigan karto, lacagna aad kala bixi karto. waa marka aad verification ku samayso. markaasna iminka ayaan ku tusayaa dhammaan application-ada waxaad kala soo degi kartaa Android-ka iyo App Store-ka. haddii aanad arkayn oo aanad halkaa ka weydana
waxaad raaci doontaa muuqaalkan aad hadda daawanayso qaybta description-ka ayaan soo dhigi doonaa dhammaan linkiyadooda kadibna halkaas ayaad ka geli doontaa. Hadda halkan ayaan ku dhufanayaa marka aan ku dhufto waxaan geli doonaa application-ka marka aan galno waxaan galaynaa qaybtan ay wallet ku qoran tahay. Wallet marka aan ku dhufano waxaan gashanaynaa Gmail, isagana Gmail-kii ayaan gelin doonaa. Marka Gmail-ka waa muhiim, Gmail-kaasi waa inuu ahaado mid security-giisu aad kuugu adag yahay oo aad hubto, waayo lacag ayaa soo dhiganaysaa haddii hadhow hackers iyo waxaasi kugu yimaadaan si aan lacagtaadi lagaaga jabsan. Marka soo gasho oo ku samaysmo Gmail-kaaga aad ku samaysato kadib verification now ayaad leedahay isna sidii kii hore. Marka verification aad tiraahdo halkan ayaad imanaysaa, kadib halkan marka aad timaado halkan ayaad kusii dhufanaysaa. Kadib marka aad kusii dhufato waxaad dooranaysaa wadanka aad joogto. Soomaaliya ayaad halkan ka baaraysaa inay ku jirto, marka Soomaaliya ayaad dooranaysaa. Kadib wuxuu ku leeyahay ma isna saddexdii shuruudood unbaa laga rabaa inaad haysato liisan, passport iyo ID card iyo saddexdaas marka aad hesho. Haddii aad haynin qof ayaad ka soo qaadanaysaa, waayo qofka marka aad ka soo qaadato waa inuu qofkiina kula joogo oo selfie-gii aan kii horeba ku samaynay aad kana ku samaysato. Marka aniga hadda ID card ayaan haystaa, ID card-kii ayaan gashanayaa. ID card-ku waa ID card Somaliland waa lagu bixiyaa, Soomaaliyana waa lagu bixiyaa. Marka passport-ka ayuu ID card-kuna ula socdaa, labaduba lagu wada siinayaa. Marka qofka aan haysan ID card markaan ku leeyahay waa ID card dhalasho, maaha ID card jaamacadeed iyo ID card kale, waa ID card dhalasho ah oo dhalasho lagugu sameeyay ayaad gashanaysaa. Marka continue ayaan leeyahay. Continue marka aan iraahdo waxaan leeyahay kaas oo kusii dhufanayaa. Kadib marka aan kusii dhufto wuxuu ku leeyahay ma waxaad ku nooshahay wadamada Mareykanka iyo USD. Marka no ayaan leeyahay, continue ayaan leeyahay. Marka halkan waxaa laga rabaa labadan shuruudood. Shuruudda koowaad waa inaan document-kii xareeyo, ID card-ka aan hayay aan sheegay aan ku xareeyo 2 minute. Halkan waa in si laga qaado, marka 2 minute ayaa lagu qabtay. Marka continue ayaan leeyahay. Marka hadda sawirkii ayaan ka qaadayaa, isna kana sawir ayaa laga qaadayaa. maadaama sawirkan ka qaaday halkan ayaan kusii dhufanayaa document-ka ayaan kusii dhufanayaa. markaas aan ka qaado halkaas aan kusii dhufanayaa. marka document-ka sidaas ayaan ku dayn doonaa. Kadib marka aan sugaynaa inta waxaa arkaysaa in document-kii qaatay. Iminkana wuxuu naga rabaa selfie. Marka selfie-gii ayaan iska qaadaynaa. waxaa arkaysaa selfie-giina naga qaaday. Verify inaad kaaga dhigo. Marka akoonkii verify weli ma noqon, marka waa ku noqon doonaa haddii uu verify noqdo. Xaggan ayaa verify ku qoran tahay, laakiin waan hubinaynaa. xagga security-ga ayaan isagana markaa geli doonaa, bal waxaan sugaynaa inta uu verify noqonayo. marka verify weli ma noqon, marka wuxuu yidhi 24 saac kadib waad la bixi kartaa lacagtaada. 24 saac waxaad la bixi kartaa lacagtaada. marka verification-kii marka halkan name-kaaga waa iska bedeli kartaa. markaasna security-ga ayaan ku xiri doonaa. Marka qaybta security-ga ayaan tegayaa. waxa aan sii tegayaa qaybta security-ga. waxaan ka baarayaa authenticator Google waa kan.
marka auto-theater-ka ayaan ku dhuftay waxaan sii leeyahay next waayo hore ayaan la soo degay marka isna sidii oo kale koodhkan yar ayaan koobiyeysanaya waxaan tagay qaybta auto-theater-ka aniga oo ku qoraya magaciisa oo ahaa Megas C ayaan ku qori doonaa. qaybtan ayaan imanayaa aniga auto-theater-ka marka wax lagu daraya ama lagu tusayo wuxuu iska dhigayaa madow marka waa shirkadda aniga maaha. marka halkan ayaan ku qorayaa magaciisa oo ahaa Megas C halkan waxaan gelinayaa koodhkan aan soo koobiyeystay isna saasaan ugu daray oo arkaysaan in xagga hoose ayaan kaga daray. marka qaybtan sida ay u shaqeyso mobil kale inaan ku dul qabto oo aan duubo mooye ma noqonayso waayo markasta oo aan qaybtan duubayo madow ayay isku bedelaysaa. marka next waxaan leeyahay maadaama qaatay waxaan leeyahay halkan geli koodhkii ayaan gelin gmail-ka ayaan gelinayaa xaggana waxaan gelin doonaa auto-theater-ka marka gmail-kayga ayaan geli doonaa koodh la igu soo diray waa koodhkii ugu dambeeyay la soo diray koodhkan ayaan gelinayaa. koodhka marka aan geliyo halkana waxaan soo qaadanayaa koodhkii auto-theater-ka ayaan soo qaadayaa ee ugu dambeeyay waa kan markaan soo qaato kadib halkan ayaan gelinayaa isagana post ku leeyahay kadibna halkan ayaan submit leeyahay marka submit iraado qaybtii auto-theater-ka oo arkaysaa marka hore tig email saarnaysan gmail-ka oo kale laakiin hadda waxa ay saaran tahay tig halkan mobile verification ayaad ku samaysan kartaa lambarkaaga ayaad gelin kartaa halkan telefoontaada ama lambarada caadiga ah gelin kartaa halkan koodh baa loogu soo diri doonaa kadib isna auto-theater-ka ayaad gelinaysaa. inta waa security-ga waad adkaysanaysaa waa security-gaaga verification-na waxaad ku garanaysaa halkan ayaa hadda lagu soo qoray verified marka account-kana saas ayuu verified ku yahay. marka isna deposit ayaa tegaysaa marka lacag ku soo shubanayso kadib waxaad tegaysaa lacagta taad soo shubanayso kolba qaybta aad soo qaadanayso BTC ba ama TRX ba ayaa tegaysaa kadib TRX marka aad tagto kadib qaybtan ayaad ku soo dhufanaysaa TRX ku qoran tahay kadib marka TRX ay ku soo dhufato weli wuxuu wadaa shaqo ayuu ka wadaa verification-kii wixii ayaan weli aad loo dhammaystirin marka waa loo eegayaa insha Allah isna saas oo select ayaad u samaysanaysaa. labada application way kugu filan yihiin haddii aad tahay qof aan lacag badan ka iibsanin sidaan hore usoo sheegayna Binance ayaa ugu fiican KuCoin ayaa ku xigta labadaas hore ayaan u samaystay iyaga oo muuqaal kama duubin markii aan samaysanay KuCoin wadanka kama shaqeyso wadamada kale ayaa laga soo sameeyay laakiin Binance wadanka waa ka shaqeysaa waana application la isku halayn karo oo muddo badan jiri kara insha Allah. labadan application ee aan ku sameeyay muuqaalkan ku faahfaahinay waxa aad samaysan kartaa wax yar ayaad ku shuban kartaa isla markaana waad kala bixi kartaa laakiin lacag dhigasho iyo lacag maalgelin haddii aad ku samaysanayso Binance ayaa ugu fiican KuCoin ayaa ku xigta marka saas lag ayaad samaysan doontaa. muuqaalkan haddii aad halkan soo gaadhay waxaan ka codsanayaa muuqaalkan like saarto si uu dad badan u gaadho inta aan muuqaalka ku xiga aan ku kulmi doono waxaad iga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.